السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان على ناخذ ugu horeyn muuqaalka diyaar uma aanan ahayn oo xafiiskayga ma joogo saad aragtaan marka mobilkayga aan ku duubaya arin la yaab leh ma aragtay doqon ayadii wadata xargihii lagu xirxiri lahaa kow waa su'aal ma aragtay haddii ay haa tahay aniga waan arkay adiga haddii haa tahay ama hadday ma tahay macna waxaan arkay Soomaali meel waxay maraysaa in ay jidka intay isku balansadaan kaamira soo qaataan isduubaan ulal iyo midye qaarkood ay wataan yacnihi ummadda ay tusayaan live na arka kaalaya booliisow markhaati ka noqo maxkamadda ogow inaan waxaas watay ama aniga aan bilaabay dagaalka caadi yacnihi meeshaas ayaan maraynaa kaamiradii meeshaas ay nageysay horaan aga hadlay adilo wixii ku saabsan arinta dabcan wixii ay ku bilaabatay raggan qabiilka ku wada social media ee u tartamaya kuwana sida videogaasi hadda doonayso wixii faahfaahina adilo halkaas aad laakiin kan maanta sida ma aha maxay uma diyaarsanaan inaan duubo arinta marka waxaan doonayaa aqliyan bas inaan u wada hadalno hal mar nacam bulshadeena waxyaalaha naga khaldan ayaan bal in yar taabanayna kaliya waxaad fiirinaysaa hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed rafaad u soo maray qurbaha inuu yimaado dhibaatooyin badan bal qaarkood laga yaabo inay tahriib iyo aad og tahay meeshan maxaan dhahaa Liibiya magafa ay soo mareen ayaa laga yaabaa qaarkood gaar ahaan meesha hadda la sheegay dagaalka oo ka dhacay waa wadamada laga soo tahriibo oo jid marka sida la sheegay dabcan meelahaas ay degan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed run ahaantii ummad ahaan waan ka xumahay waxana ugu habsanaya ee nagu dhacaya guud ahaan laakiin haddana waxaan isweydiiyay oo aan dabcan commented inacooda ku arkay video yar oo ay leeyihiin walaalaha qaarkooda waaba tanaayo gabadhaanoo safar ayay tikid ayay goosatay si ay dagaal u gasho subhanallah macna tikid waxay u goosanaysaa inay dagaal gasho waxaan hubaasa maanta labadii qof ee dagaalantay in labadooda ay yaqiinsan yihiin ogyihiin xanuunka soo gaaray ilaa waa isdilbaaxeen waa isdileen dhulka isku dhufteen waxaan ogahay marka maanta xanuunka inay dareemayaan kow oo xagga jir ahaan jismiyan kow labo booliis iyo balaaye iyo wixii la midka ahna xanuunkiisa maanta inay hayaan qabiil war qabiil iyo wax u taray war ii sheega in badan su'aalahaas idin weydiiyay dhammaan waxaad isku raacsan tihiin markaan wada akhriyay inta badan commentyadiina in qabiil oonan jirin cid wax uu u taray dhammaan waan arkay طيب hadday sidaa tahay in aan ticket goosto diyaarad macnaha raaco dagaal aan raadsado ama qofkan kale intuu video live soo fariisto oo qabiil oo meesha ka caayo qabiil oo ku difaaco aqliyada ku jirta maxay tahay midda labaad waa hooyooyin sida dad badan aan ka maqlay oo ay sheegayaan hooyaa tahay tusaalaha aad bixinaysa maxaa weeyaan dibaddaas aad joogtaa carruurtaada ma waxaad doonaysaa in laga qaato ilaa hadda waaba sidaas say ku socto waa sida nacam waa sida hadhow waxaan maqlaynaa marka hadda u fiirso shakina igama jiro waxaan maqlaynaa Soomaaliya dhibtaas ay haysato hal ay caawiyo xaaladaas ay ugu dhacday hal ay caawiyo oo marka adiga waxaan sameeynayay halkee aqliyada u jiray qabiilkanse remote-yada haysta electronics iyo alaabta in lagu ciyaaray carruurta ay ku ciyaaraan iyo waxaasaan remote lagu hagaa ama telefishinka ayaa remote lagu hagaa qabiilkan remote-ku idinku hagaaya xoog badana waa wireless-ki ugu cajiibka sanaa ama bluetooth-ki ugu cajiibkana qabiil haddaad maqasho macnaha odayaal waa hore dhintay qubuurahooda ku jira ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta wax alla wixii ay sameysteen helay oo ilaahay uu siiyay dabcan la kulmo helay ayaa maanta u kala xanaynaa oo aan leenahay aniga groupkaasaan ahay ayaa waxaan u sameynaynaa gaar ahaan arintan sida aan inta badan aan arkay ama aan ogahay waxa ka dambeeya dabcan video aan ka soo duubay arinta rag Soomaaliyeed iyo dumar Soomaaliyeed laakiin raggii aan videogii hadda dhawaa aan kula hadlay ee walaalka Shiine culay aan ula jeedaa khaasatan iyo walaalka kale Bilaal نعم بلال بلشاوي
labadoodaas ayaa arrinta ma hubo laakiin saan u badinayo maxay inta aan baarid sameey aan qoray aadna aragteen videogaasi waxaan ku soo bandhigay arrin aanan hore u jirin in qabiil ummadii loo kala qaybiyo in yani fitnaad bilowdeen walaalayaal xaqiiqatan fitnaad bilowdeen videoga hore si wanaagsan u hadlay oo idinkula hadlay arrinta inaad joojisaan ciddii idinku soo dabcan xigtee soo socotay arrinta doonaysa inay samaysana waan ka hadlay oon u sheegay laakiin adinka maanta waxaan idin leeyahay waad eedaysantihiin nacam waad eedaysantihiin labadiinna fanfan u ciyaara ka dhiga ciyaar ka dhiga baashaal qaraaxa iyo qosol ka dhiga ama maal ku gurto oo lacag ku raadiya waxay ahaataba laakiin waxaad ogaataan sunno xun aad u liidata ayaad jidayseen haddii ay dad idinka horreeyeen ay bilaabeenna sunnadaas ayagaa jidayo ayagaa dembigeeda iska leer maxaa yeele rasuulullahi sal ly slam ayaa wuxuu leeyahay qofkii bilaaba wax wanaagsan sunno fiican qofkii sameeya ajarkeeduu leeyahay iyo ajarka dadka sameeya arrintaa cagsigeedana qofka dembi ama xumaan sameeya khalad sameeya wax alla wixii xumaanta ah uu sameeyey wuxuu leeyahay culayskooda dembigooda iyo dadka wixii uu asaga sameeyey raacoo sameeyey liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamah ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم نعم ألا ساء ما يزرون الله محي علاس يحنون إدبا تبضن قادن كوا أبو أليه وروح أجرين إنسان فيريا والعقل ينهى الكوجرة رفات كتكو إماتين دي بدو أكتهين نعم إده قاركو والغيابة إنه دعني عادي أنكو إمين ودد بدنا كو إمين عادي رفات دانا كو إمان وصح لكن maxaa ay tahay waddankaada kaa soo waday oo aad halka u joogtaa soo dhib maaha ilaan qof maanta dalxiis ku jooga ma lahan sharciyadaan qaadanay okay waddamadaasan u dhalanay macnaha oo citizen kaasaan ahay waan dhahnaa laakiin waddankii adiga aad u dhalatay maxaa kaa soo waday soo dhib maaha ma dalxiisa halkan ku joogtaa inta lacagti kaa badatay oo baashaal iyo raaxa iyo masaas ku joogtaa yacnihii uma joogtid dalxiis halkan nolol ayaad dabcan u joogtaa inaad shaqaysato nolol wanaagsan yeelato iyo wixii la midka ah soo sidaa ma sabab marka ay ku dhacaysaa qurun iyo qashin in maanta ummaddaasi aad ku kala geyso ma kuu qalantaa ilaah baan kugu dhaarshay wiilka i dhegaysanayo gabadha i dhegaysanaysay ma idin qalantaa in maanta aad u kala safataan qabiilo qaarkooda ay leeyihin la jannaata yacni la yaab dad aan lacag ku bixinaya waxaa la ii sheegay walaalihii habeenkaa tartamay inay lacaga fiican qabsadeen lacagta yaa bixinaya yaa kana lacagta siinaya kana lacagta siinaya waa ayo sida loo kala raayay soo qabiil ma ahayn adigaa ka qayb qaatoo lacagta bixiyey iyo adigaasi ka qayb qaatay oo lacagta aanan bixin laakiin macnaha cuddadaada iyo maxaan ku dhahay tiradaada aad ku buuxisay waxaan ku leeyahay aad ogaanaysaa in aad ka qayb qaadatay nacam xumaan maantana aan hayno hooyooyin Soomaaliyeed inay jidka saa isugu laayaan ay dagaal iyo balaayo iyo subxaanallah wallahi waan yaabay nacam dad waan aragnaa la soo duubo oo markay dagaalka uu dhaco ama uu dhacaayo kaamil laga daba qaato imisaan aragnaa laakiin dad ayagiiba intay ku soo talagaleen live soo galay gabadha kalena sidaasoo kale daday wadataa live ayagana sidaasoo kale way duubayaan kaale arag waxaad u malaysaa musaaracadii caadiga ahayd feerkii caadiga ahaa oo la isu balansadaad u malaysaa hadda marka stationka ama xiridda ama booliis iyo caruurtiina iyo familkii nooga warrama sida xaaladda ay tahay halkay xaaladda maraysaa ma u tahay arrintan tusaale marka cid alle ciddii arrimahan ku shaqada leh ama doonaysa ama xumaantan inay ka qayb qaadato doonaysa digniin ma u tahay digniin middaasi waa taa waxaan arkay sidoo kale walaalo kale niman ah ayagana oo qabiil iyo wixii la midka isu ballansanayna waan arkay ayagana nacam rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa haddaad qaadanayso haddaad rasuulka jeceshahay ogow rasuulka jeclaantiisana allah jeceshaha weeyaan qul in kuntum tuxibbuuna allah فاتبعوني يحببكم الله الله سبحانه وتعالى وعد كل هذا نبي محمد ذكر وعد كل هذا هداد جعشهن قل إن كنتم تحبون الله هداد الله جعشهن فاتبعوني يسرع عنك يعني نبي محمد أنا جوا يسرع بولي رسول الله صلى الله عليه وسلم
maxaad helaysaan natiijada maxay noqonaysaa yuxbibkum allah idin jeclaana tabaaraka wa tacaala rasuulka wuxuu leeyahay dacuuha fa innaha muntina ka taga daaya ha sheeganina ha isku macnaha habarwacanina ha isugu xigsanina qabiilka qabyaaladda fa innaha muntina maxaa yeelay waa qurun waa wax uray waa bakti waa wax liita waa wax aanan wanaagsanayn horumarka uu qabiilku ku gaarsiiyo waa halkeed ka aragta waa kee maxaa uu kuu taray qabiil oo aanan ka ahayn inuu ku soo qixiyey oo aanan ka ahayn inaad maanta qaxootid tahay haddaad waddankii joogtaan oo aanan ka ahayn inaad faqri iyo gaajo ku noolaato ama bil inaad ku noolaato lagu soo biiro maxaa qabiil u taray ummadda habeen iyo maalinan waxaan dabcan la qaybsan ama aan ku baraarujinnaa war waxyaalaha qaarkiisa waa qofka inuu ka yaqaqsoodaa diidaa inkiraa laa xawla walaa quwata ilaa billah walaalahayga qaaliga ohow gaar ahaan gabdhihii dabcan xagga marka la fiiriyo ilaan raggaa shar ahaan markay noqoto shar badan marka social media aan fiirino laakiin maanta waxaad u malaysaa in dumarkii ay ka badanayaan shar ahaan markay noqoto ragga oo ay dumarka ka shar badan yihiin qabiilkii ha noqoto raggii ayagaa kaga horreeya meelo badan qaabnaantii hadda ayagaaba number 1 ah haddana dagaal life ah oo ragga aan ku ogaan jirnay raggaa samayn jiray dabcane maanta inay dumarkiina ay ku soo biireen idinma dhahay ku soo dhawaada ka taga daaya walaalayaal war dhaawicii ku gaaray maanta markaad isfeerayseen dhulka la isku dhufanayay dhaawicii idin gaaray bal ii sheega isbitaalka iyo maxaan ku dhahay daawadii iyo xanuunkeeda iyo mise macaan weeyaan marka adiga firitada lagaa daaweyna macaan miya ma shukulaataa ma ice creama jalaataa so xanuun ma maanta marka waxaan hubaa hadday noqoto xabsi ama booliis iyo kiis iyo caruurtiina iyo balaaye iyo hadday noqoto iyo jismiyan physically wixii idin gaaray waxaan hubaa maanta in yar miirkiina hee oo soo laabtay laakiin waxaan ogahay adinkoo sidaa oo miirkiina in yar uu u soo laabtay rimuudkiyaa jira qabiilka rimuudkii la idinku hagaayay qabiilkaa jiro waxaa laga yaabaa weli inaad tahay anaa raaye iyo waan raadinayaa iyo haddaan saan ku samayn waaye iyo ogaadana adinkaa waxaad isugu noqonaysaa markhaati in kiis fiican oo xabsi daa'in ama xabsi 5 sano iyo wixii la midka ah carruurtan la idinka qaato adinkaa markhaati isugu noqonaya caddeynteed badsanaysaan badsada marka haddaan la idin celin karin badsada fadlanna arrimahan dadka samaynaya magaca Soomaaliyeed wadataan meel walba dabcan nala dhibsaday sankaana naga heystaa hadday noqoto wax walba xun dhagahana naga heystaa hadday noqoto wax walba xun indhahana naga heystaa hadday noqoto wax walba xun maxay waddankeena saan u soo galnay ogtahay moqt haddana wadamadii sharciga ka jiray oo dadkii dabcan dhistay hagaagsaday noloshaasi kala dambeynta sameystay amnigooda iyo yaani ilaashaday ayaa annaga waxaan sameeynaa inaan amnigooda khalkhal gelino inaan noloshoodii iyo yaani say u socotay nolosha iyo xasiloonidii iyo ilaan xasiloonida dagaalka dhacay xasiloonidu macnaha wuxuu ku yahay halis waxyaalaha lagu faano maxaa kamid ah ma taqaana haddaan ogaan ku sheego nacam dad badan waxa laga inaan arinta inaan fahmin laba qof oo isdagaashay ma xasiloonida dad badan inay ogaan laga yaaba waxa jira haddaan ogaan macluumaad cusub ku noqoto waxa jira xaafad walba inay leedahay crime rate macnaha dambiyada ka dhaca iyo imisa ayay dabcan tahay mesela boqolkiiba imisa dambi macnaha meesha ka dhaca noloshaadoo dhan ku xiran xaafadda dambigeeda iyo dagaaladeeda iyo wixii la midka ah baawar xadideeda iyo tuugadeeda iyo waxaas oo yar yahay u fiirso iskuula cajiib ah ku yaala nolosha waa nolol cajiib ah dad wada wanaagsan degan gawaarida iyo wixii la midka ah insurance-ga waa u raqiis u fiirso yani waxyaalo badan ku xiran xaafadda iyo maxaan ku dhahay area-da baawar xadideeda iyo tuugada iyo guri jabsasho iyo dagaalka dadka is dagaalayaan iyo jid istaaga iyo gaangiski ka oo ku badan yahana guriyaheeda cid rabta malaha ko labo gaari qof meesha degan ma iibsan kara xataa maxaa insurance-ga cirka maba awoodi kara inuu insurance bixiyo iskuulo waxa ku yaal nolosha ka wada dhacsan dadka ama caruurta dhigata yacnihi waa dad way nool yihiin u nool uma noola sida dadka kale xaafadda dabcan ku xigta ama xaafadda dhinaca ka sii jirta say dadka idoo u nool yihiin uma noola maxaa waa xaafad crime-keeda ama dambiyadeeda iyo qalalaasa iyo dagaalka isku dhaca oo badan yahay marka ogow
xaafadaasi aad ku dagaalantay naftirkeeda dambi ka gasheen Soomaali ka soke Soomaali intaan la gaarin xaafadaas dambi ka gasheen almuhim jahli ayaan u sababeynayna ko waxaan kula u sababeynayaa maxaan ku dhahay shaqo la'aanta nacam shaqo la'aanta maxaa dadka markay inay shaqo hayn qabiil iyo qashinkiisa ay ku dabcan mashquulsan yihiin waxaa dhacaysa enerjigiisa meel ku bixiyo doonaya qofkan exercise inuu sameeyo doonaya exercisekiisa marka yacni maruu hadlo iyo maruu dagaalamo oo raadiyo dagaal ilaan qofka ticket u goostay ilaah baan kugu dhalashay kuna faanaya ticketan u goostay raadinteeda iyo kada qoftan kalena sidaas oo kale inta meel soo baxday dagaalka u imaatay marka intaasan ku soo koobayaa ka bari noqo ilaahay oo bariyaan kaaga nahay ilaahay ummadaasi ha noo hagaajiyo waxaasina ciddii aragta ha inkirto qabiilna iyo qabyaalad halka iska dhig nacam ha rasuulka inkiro diiday adna halka dhig Allah ku barakeeyo intaasan ku soo koobo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته وليغان طبعا سيقرايا يسيدكم جوجو مركله رالي نقض ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر